السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا القناة كان هن يمان وأد أعلم إنك نسعتان وحرجينا يعني إن عافمات قبطان كعم فرن كسر هذا وأمرك لي شكدني وإقياني سجى يحاس كيسا بارتتو قيبتي كواد شكدنا وحينو مريسي أسلي أو وعدي أسد ونشكتي إنه هزتو فسح الويجاه إنه إيمانيسو يولي بأسد أو شاقي إنه لدقنته جبر ولا شيء ساعة وعنك هزتو dalkiina ka timid oo wadanka ku cusub haatana inoo bilaawato baartito sheekadeenii uu iqyaanay isaga iyo xaaskiisa waxay tiri asli waxaan goostay tikidkii waxaan dhoofay 2 maalin kadib waqtiga aan isla hadlaynay asad waayo waqtiga ayuu igu yaraa waxaan haystay 2 awig oo kaliya ama 2 asbuuc oo kaliya waan tagay oo waxaan tagay dalkaasi Turkiya si wanaagsan ayuu ii soo dhaweeyay sida caadadana ahaydba waxaan tagnay gurigeeni waxa joogtay gabadhii oo igu sheegay inay tahay walaashiis aad ay soo dhaweysay oo waxay waanan isbarasho kadib halkii ayaan ku wada nooleen muddo hal week ah week kadib waxaan dareemay gabadhani inay dhibsanayso ama inaan aniga guriga ka ahay sida marti oo kaleeto waxna kama soo qaadin oo dadku ay kala dabeecad duwan yihiin waxaan isdhahay waxa laga yaabaa inay iyada dabeecadeeda tahay iska daayo waxba kama soo qaadin xanaaqeeda iyo hadaladeeda kulul midnaba waan baxnay oo asbuuc kadib waxaan aadna dalxiis waxaan u aadnay magaalo kaleeto aniga iyo xaajigayga meeshaas ayaan waqti qurux badan ku soo wada qaadanay inkastoo gabadhan ay waqti walba soo wicisay ee weydiinayso waqtiga aan soo laaban doono waxaan dhahay walaasha guriga ay ku cidlootay ha ayuu dhahay oo may baranin inay kaligeed noolaato familka sida ay uga soo tagtana aniga ay ii timid qurbaha ay ku cusub tahay afkina ma taqaana sidaas darteed ay u walwalaysaa inay kaligeed joogto dareemi karaa qof wadanka ku cusub luqadiina ka saynin wadankan ku cusub yahay waxba kama soo qaadiyaan hadal ku daalin 2 week markay ay ii dhamaatay waan soo dhoofay oo waxaan ku soo laabtay wadankeygii aniga oo iska faraxsan wax dhibaato ahna aanan dareemaynin waxaan ku laabtay shaqadeydii waxaan u sheekaysan jirnay sidii hore waxaan ka wada sheekaysan jirnay telefoonka inkastoo aanan markaan ahayn waqtigii badan aan hore isku siin jirnay aanan isiinaynin aan ka dareemay dhankiisa xogaa caajis ah waxaan islaha wuxuu ku mashquulsan yahay waxbarashadiisii shaqadiisii iyo waliba walaashiis uu caawinayo oo waan u garaabi jiray kama soo qaadi jiran maqnaashihiisa iyo waliba hadal gaamnidiisa oo san ii soo wicinin sida hore uu igu soo wici jiray oo ila hadlaynin sida hore uu igu la hadli jirin yaana hadal idinku daalinay maalin maalmaha kamid waan xanuunsaday waxaan dareemay xanuun dhakhtarka ayaan tagay waxaan ogaaday inaan uur leeyahay waan wacay oo waan u bishaareeyay waxaan la qaybsaday farxadii sidii xaas iyo odageeda ay farxad u wada qaybsadaan aad ayaan ugu farxay xaqiiqdii asagana waxaan ka dareemayay inuu aad ugu farxay inuu noqon doono aabo farxadeena halkaas kuma ekaanin muddo 2 bilood kadibna waxa u soo baxay fiisihiisii waxaan ku dhahay aad ayaan ugu faraxsanahay inuu fiisaha ku soo baxo waayo anaga aroos ma dhiganin markaan iskuursanay xaflad iyo waxba ma dhiganin meher ayaan dhiganay oo familada dhexdooda ah oo kaliya waxaan ku balansaneen markuu imaado dalkan UK inaan dhigan doono xaflad aroos oo aad u weyn waxaan ku dhaawaa alxamdulillah mar ayada calooshay soo weynaanin hadaa hesho fiisahaaga waa inaad u timaadaa sida ugu dhaqsiyaha badan si aan xafladeena u qaban qaabino haddana waa inaan ku jira tikidka oo aan soo baxdid 2 maalmood gudahooda wuuna ka cuslaystay oo wuxuu igu yiri maya waqti ayaan haystaa hadda ma soo baxayo waayo waxaan rabaa inaan waalidiinta u tago oo wadanka ku laabto aan soo macsalaameeyo oo aan ku imaado kadib waayahay ayaan ku dhahay dhib ma lahan balse soo dhaqso intaan calooshay soo weynaanin si aan xafladeena aroos ku dhigano ayuu igu dhahay sidii ayaan isku macsalaameynay maalintaasi bil iyo bar ayaa ka soo wareegay waqtiga uu fiisihiisa gacanta ku dhigay waxaan ku dhahay haye soo ma soo bixaysid markaan waalidkii waa u tagtay oo waad soo macsalaameysay wadanka ayuu ku soo laabtay markaasna wuxuu joogaa muddo 2 asbuuc waan sugay haduuna war isiinin oo idin waa soo baxaya ayaan ku qasbanaaday in aniga ku iraahdo haye soo ma soo bixaysid sababtoo ah waxa ka soo wareegtay bil iyo bar markaana waxa weeye inaad soo baxdid oo aad timaadid halkan waxa meesha ka sameynaysaa waxaan dheerareynay inaan isku imaano waqtigan uu nagu dheeray mar hadaa fiisaha heshan waa inaad ii timaadaan haye ayuu idhahay tikidkii ayaan jarnay oo waxaan u diray lacagta uu tikidku ku jaranayay wuxuuna ii sheegay
waxa ii soo diray tikidkii waxaana ku qanacday inuu soo bixi doono 20 bisha labaad oo halkan ka soo degan doono subaxdii 9 aroornimo. waxaan aad ayaan ugu farxay waxaan isku diyaariyay soo dhaweynta odagayga. gurigii ayaan bedelay oo waxaan soo gaday alaab cusub iyo waliba guglo cusub iyo dhar cusub iyo waxyaabo fara badan oo aan asaga ugu talagalay. aad ayaan ugu faraxsanay inuu asaga dib aan u kulmi doono oo aan u midoobi doono waliba anagoona kala tagaynin. maalin walbana waxaan ka wada sheekaysan jirnay video call-ka waxaan tusi jiray alaabaha gurigeena aan dhiga doono iyo fadhigeena jiifkeena iyo wixii la mid ah. waliba waxaan la qaybsanay dooqiisa oo waxaan diiday in aniga soo dhigo ama aniga aan dooqa qaato oo aan guriga soo dhigo dooq aniga aan kaligay leeyahay. waxaan wadaageenay dooqeeni. gurigii ayaan diyaariyay wax walba oo naga maqnaayna waan soo diyaariyay. aad ayaan u faraxsanaa farxadeedina ma la soo koobi karin waayo riyooyinkii aan lahaay oo dhan waa ay rumeeyeen. odagayga hadda wuu ii imaanayaa. wuxuu xaalku sida ahaadaba waxa la gaaray xilligii uu soo baxayay. waan wada hadalnay waxaan iigu wardambeysay saacad ka hor xilliga uu soo dhoofayay sida uu iigu sheegay. waxaa la gaaray xilligii uu soo degayay. waan baxay oo waxaan aaday airport-ka 2 saacadood ka hor waqtigii uu soo degi lahaa. waxa meesha ku sugaba waxa la gaaray xilligii ay diyaaradda imaanaysay. diyaaradda ayaa soo caga dhigatay oo waan sugay ilaa qofka ugu dambeeyay uu soo baxo. waan waayay oo ma uusan soo bixin asagii. markaas waxa igu bilowday walwal. haddana waxaa isdhahay bal sug waxa laga yaabaa intaasoo boorsooyinkiisii ama waxa uu watay ee ka dhumeene. waan sugay oo cid soo socoto ma jirto. waxaa wacay lambarkiisii wuu dansan yahay. waxaa wacay gabadhii walaashiisa aheeday lambarkeedii asagana wuu u dansanaa. cir iyo dhul meelaan jooga ayaan garan waayay. waxaana airport-ka ku sugnaay muddo 5 saacadood ka badan. waan soo baxay oo gurigii ayaan ku soo laabtay. waxaan wacay mar kale gabadhii walaashiisa ahayd misna telefoonkeedu wuu damsan yahay. sidoo kale telefoonkiisa waxaan wacay muddo ka badan 100 jeer waayo aad ayaan u walwalsanaa mana garanayno waxa aan sameynayo. telefoonkiisa sidoo kale wuu damsan yahay. waxaan wacay familkiisii inta uu i baray ayagana waxa ay sheegeen inay ugu wardambeysay markuu dhahay waan baxayaa ayna warka haynin kadibna aysan isla hadlin. waxaan sameeyay ayaan garan waayay. gurigii ayaa cariiri igu noqday. darbiyadii ayaan fiiriyay. waan baxay oo waxaan aaday gurigii familkayga. ayaga ayaan u sheegay wixii dhacay. waa inay ila walwaleen oo qaarkood waxay igu dejinayeen haddii uu nool yahay inuu soo hadli doono waxna aysan ku dhicin aan iska suga asaga. halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybtii labaad ee sheekadeeni wuu iqiyaanay asaga iyo xaaskiisa. la soco qaybtii saddexaad ee sheekadeena. please subscribe noo saar channelkeena haddii aadan hore noogu saarin. aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashadiina.